lixlaatankii Juun 1960 waa maalintii xorriyadda Soomaaliya ay ka qaadatay gumeysiyaashii Ingiriiska ah ee ka talin jiray gobolada waqooyi ee Soomaaliya. 16 Juun 1960 waxay ahayd maalintii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada waqooyi ay ka hoos baxeen maamulka Britishka ee xilligaas ka talin jiray gobolada waqooyi ee Soomaaliya, taasi oo horseeday ku dhawaaqitaankii madaxbannaanida gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka qaadatay maamulka ama gumeysiyaashii kusoo duulay dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka talin jiray koonfurta Soomaaliya ee xilliga la oran jiray Talyaaniga. Ugu dambeyn, 1 Luulyo 1960 waxaa midoobay gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya, kaasi oo lagu aasaasay dowladii iyo maamulkii ku horeeyay geyga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guud ahaan, maanta oo kale maanta waxay ahayd maalin aad u nasiib badan dadka Soomaaliyeed ay ka xoroobeen gumeysiyaashii kusoo duulay geyga Soomaaliya. 16 Juun 1960 maalintaas oo ahayd maalin ay xorriyadda Soomaaliya ay ka qaadatay gumeysiyaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ilyas Abdiqaadir Abuukar, Ilyas Kulmiye, Muqdisho. Yeah.